to get him off the ship! Now like this! filimkani oo laga metelay afduub sanadkii 2009 ay xeebaha Soomaalida u geysteen markab la yiraahdo Alabama oo laga lahaa dalka Mareykanka iyadoo si gaar ah loo xasuusto afduubkaasi sidii uu uga fakaday kooxdii burcadbadeed ahayd kabtankii markabka lahaa oo la oran jiray Richard Phillips. filimkan ayaa waxaa loogu magac daray kabtanka waxaana la yiraahdaa Captain Phillips Trailer. filimkan ayaa waxaa ka qayb galaya 4 qof oo Soomaali ah waxaana ugu magac dheer Soomaalida ka qayb galaysa Barkhad Cabdi oo ku metelaya magaca Muuse isla markaana ah ninka metelaya hogaamiyaha kooxda burcadbadeed ee afduubtay markabka Alabama. muuqaal loo ekeysiyay sheeko dhab ah oo ku saabsan afduubkii ka dhacay sanadkii 2009 ayaa muujinaya kooxda burcadbadeed ee bariga ku sugan oo soo diyaarinaysa sidii afduubi lahaayeen markabkaasi iyadoo kabtanka markabka waday Richard Phillips uu isku dayayo inuu biyo ku asqaysiyo doonyahan awoodda badan lahayn. asaatee burcadbadeed tan u tababaran sida Commandos-ka ayaa gudaha u galay markabkaasi laakiin muddo kadib markii afduub loo haystay markabka Alabama ayaa ninkii kabtanka lahaa ee la oran jiray Richard Phillips ayaa waxa uu ku fakaday laash yar oo ugu jiray gudaha markabkaasi waxaana goobta afduubku ka dhacay aan ka fogeyn markab dagaal oo ay lahaayeen ciidamada badda Mareykanka oo ku sugan xeebaha Soomaaliya. Richard Phillips oo noloshiisu caadi ahayd ayaa markii uu ku laabtay dalka Mareykanka waxaa loo aqoonsaday halyey waxaana uu qoray filimkan loogu magac daray. filimkan ayaa waxaa abaabulay nin lagu magacaabo Paul Greengrass waxaana filimkan uu ka mid noqon doonaa filimada u tartamaya bilada Oscar-ka ee lagu bixiyo magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. Khalid Cabdikariin Xaaji, shabakada caalamiga ah Hiral News, magaalada Burco.